Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo warqaddii uu soo qoray madaxweyne xasan iyo waxaan rabaa inaan ka hadlo khaatumo oo afkiina laga casumay warqaddaasna aan lagu soo qorin. Haddii ugu cusubtiin subscribe-ka laagta noo saara. Haddaan kusii socdo xasan wuxuuse ka warqabin wuxuu sameynayo iyo dadka uu ku sameynayo dowlad goboleedyada wuxuu u qabaaba ilmihiisii oo kale. Xasan waxaan leeyahay xasanow, dowladda Puntland waxay ku tiri xiriirkii baan kugu jarnay, dowladna kuma aqoonsanin, annagaana gaar isku maamulayna. Caalamkiina waa u sheegtay iska daa wax kale iska daayay, xaqooda xataa gaar baa loo siinayaa. Haddee ninkan la yidhaahdo Ismaaciil Cumar Geelle 5 magaalo haystaa, 5 magaalo. 5 magaalo ayuu kor ka haystaa, laakiin Soomaali 5 magaalo ma aha. Puntland dhulkeeda keligeed waa ku filan tahay. Warqaddan waxaa lagu soo qoray Puntland iyo dowlad goboleedyada kale. Maxaa khaatumo afka u imo loogu yiri oo haddana warqadda loogu xusi waayay? Anigu khaatumo halkan waxaan uga sheegayaa khaatumo firdhiya dadkan xamar jooga waa dadka sumeeya madaxweyne. Hadda waxaa la dhahay ninka la yiraahdo Cali Guud Walaawe sunbaa la siiyay, la dhahay wuu xanuunsan yahay. Hadalkaas suuq ku jiray. Adiga warqaddan madaxweyne laguguma xusin, waan isku diyaarinaysa inay aadaan xamar. Hadda dadkan sun waxay isticmaalaan qofka inta la siiyo 2 bilood ama 3 bilood ama 8 bilood kadib inuu dhinto loogu talagalay oo qofkaasi xilliga uu dhimanayo. Marka waxaa la idin qaataa inaad meeshaas idin aadin oo iska daysaan, maxaa yeelay ninka warqaddii kuugu xusi waayay kuugu qori waayay. dee hadhow markaa u tagtid wuxuu leeyahay maana yareen midha xamar bay iska yimaadeen, inta bombal idinku xiran la baabiinayaa. Xasan iyo argagixisada waa saaxiibo, maxaa yeelay waa kan hadda Mahad Salaad xilkii uu ka qaaday. nin kale oo argagixisa buu u dhiibay, ninkii kale ayuu u dhiibay markii la qarxinayay meeshii la hayay, meeshii dadka badan ku dhiman jireen magaceedu waan ilaaway, wuu joogay. Marka ninkan la leeyahay Sambarosho waa ninka dhahay hadalkiisa afkiisa ka yiri dadkii laga adkaaday baa sharciga noo qoraya, annaga adkaanana sharciga noo qoraya inaan qorna ahayd. waa ninkii Sambarosho. Xasan waxaan uu wato ha iska wato 2 sano ha iska joogo. ninkan leeyahay Xamsana ha iska fadhiyo meeshaas, dad bahadaaq markii la dhaho hadaaqo. marka firdhiyo waxaan ku leeyahay waxaa idinla maagaya madaxweyne, meesha ha isku aadin. waxa warqadda lagugu soo qori waaya ku jirta. haddaa aadid waxaa weeye dee bamba haddii lagugu xiray xamar asaas ka yimaado, annagu maana u yeerin, warqadda intaasaa ku qornayd. waxa uu dhihi karaa xasan wuxuu la shaqaynayaa Muuse Biixi, waa ninka hay-adihii caawin lahaa markii dagaalka laascaanood uu ku socday. hay-adihii caawin lahaa wuxuu yidhi waa ka joojiyey. naagta wuxuu u sheegay naagta cunta Ingiriiska wuxuu ku yidhi laascaanood waxaa ku dhimatay 30 qof, 3 milyan wuxuu siiyey Muuse Biixi lacagta hubka lagu soo gadayay. hubkana Ismaaciil baaba gado oo laga soo gadayay oo hoosh wax ka hayay. marka madaxweyne firdhiya xasan waa cadowgiinii, iska ilaaliya. saasaan idin leeyahay. dowlad meesha ma taalo. dowladda cusub ee soo socota ayaad qaybtiina ka helaysaan. dowlad goboleed hadda waxaa loo yaqaanaa Hirshabelle. Hirshabellena waad aragtay waa jowhar keliya. waxaana sameeyey xasan. tiinana idinka xiniyiina ku samaystay.
khaatumo idinkaa samaystay marka khasab bay khaatumo ku jiraysaa weligeedba way ahaanaysaa dowladda madaxweyne meeshaas argagixiso ay joogto ha isku aadina firdhiyow intaasaan kugula dardaarmayaa daawashadiina ku mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabaday